kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee beesha caalamka oo fariin culus ka soo saartay doorashada Soomaaliya. Saddex qodob oo ay dalbatay ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah. Warar lama filaan ah oo ka soo baxaya weerarkii ka dhacay Kismaayo, xogta dhalinyarada la laayay, maxaase ka jira in qaraxaas lagu dilay lahaa madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxda kale ee Jubbaland. madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo kamid ah madax si damqasho leh uga hadashay weerarkii Kismaayo oo shabaab loo haysto. Wararkana kalena waxaa kamid ah ra'iisul wasaare Roble oo si weyn uga carooday tallaabo ay qaadeen madaxweyne Farmaajo iyo taliye Fahad Yaasiin. maxaa la isku qabtay hadaba iyo odayaasha Koonfur Galbeed oo ku hanjabay in ay hor istaagi doonaan doorashada haddii aanan la sii deynin Sheekh Muqtaar Robow. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana subax sabti ah 31 bisha 7 ee July sanadka 2021. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa midaan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan. fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiya saaxiibadeena idinkoo ku share gareynaya baraha bulshada. mahadsanidin. aynu ku bilowno wararkeena. xilli doorashada Soomaaliya ay bilaabatay gaar ahaan tan aqalka sare ayaa beesha caalamka waxay soo saartay qoraal culus iyo fariin ay u dirayso dhinacyada Soomaalida. war-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay horumarka laga gaaray doorashada iyo hirgelinta heshiiska doorashada ay gaareen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira. saaxiibada caalamka ayaa ku baaqay in shaqada harsan ee arrimaha doorashada lagu soo gunaanado geedi socodka doorashada si ay dhaqso leh u noqoto mid u dhacda doorashada guud ee wadanka Soomaaliya. saaxiibada caalamku waxay soo dhaweynayaan horumarka laga sameeyay hirgelinta heshiiska 27 May oo ay wada saxiixeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka. waxayna ugu baaqayaan dowladda iyo dowlad goboleedyada in aysan dib u dhac kale ku imaanin doorashada aqalka sare oo ahayd inay bilaabato 25 Luulyo ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay beesha caalamka. tusaalooyinka horumarka leh ee ugu dambeeyay waxaa kamid ah in la isla qaatay kala tirsi doorasho oo la soo cusboonaysiiyay inta badan gudiyadii maamulka doorashada hadda waa la dhisay waxayna iska dhex doorteen madaxdooda. guddigii la igmaday ee wasiirada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ayaa wada tashiyo ku yeeshay magaalada Garbaharey. waxaa la qabtay shir hordhaca oo guddiga amniga doorashada. ra'iisul wasaaraha ayaa magacaabay guddi caalami ah si kor loogu ololeeyo arrimaha qoondada haweenka ayaa lagu yiri sidoo kale qoraalka ka soo baxay beesha caalamka. ugu dambeyntii beesha caalamka ayaa ku baaqday in la sii dardargeliyo howlaha doorashada dalka si loo soo gunaanado geedi socodka doorashada. waxaan ku baaqaynaa in shaqada harsan ee lagu soo gunaanadayo geedi socodka doorashada ay si dhaqso ah horey ugu socoto isla sidii wadar ogolka ahayd. arrimaha mudnaanta leh ee degdega ah waxaa kamid ah in diyaar garow dheeraad ah oo faahfaahsan loo galo amniga doorashada ayaa lagu yiri ugu dambeyntii qoraalka ka soo baxay saaxiibada caalamka ee taageera dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. warqa TV ayaad nagala socotaan wararkii Soomaaliya ayaa daawanaysaan imikana. warar lama filaan ah ayaa ka soo baxay qarax xooggan oo ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka Jubbaland kaasi oo lagu laayay dhalinyaro ciyaartoy ahayd. wararka laga helayo magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in qaraxan oo ahaa qarax lagu xiray gaari ay waxyeelo xooggan ka soo gaartay ciyaartoy u socotay ciyaar ka dhici lahayd magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland halkaasi oo laga daafurayay koob ay ka qayb galaysay kooxdaas baska saarneed. wararka ayaa sheegaya in baska la qarxiyay ay lahaayeen rugta ganacsiga Jubbaland ayna la socdeen koox ku ciyaarta magaca rugta oo la yiraahdo JCCI. dadka deegaanka waxay sheegeen in gaariga baska ah uu gabi ahaantiis gubtay kadib markii ay la kacday miino wadada lagu aasay. inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in gaarigaasi qaraxa lagu xiray. waxaa la sheegay in ugu yaraan 3 ruux halkaasi ay ku geeriyootay siday xaqiijiyeen laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland. inkastoo khasaaraha la sheegayo in taas uu ka badan yahay. dhinaca kale xogo uu helayo warqa TV ayaa waxay sheegayaan in gaariga qaraxa lagu xiray ee baska ahaa
la qorsheeyay in lagu beegsado madaxda dowlad goboleedka Jubbaland oo iyagu shalay daafurayay ciyaartii ay ka qaybgali lahaayeen ciyaartoydaas qaraxa uu haleelay. wararku waxay sheegayaan in madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo madax kale oo ka tirsan maamulkaas ay ku sugnaayeen garoonka Wamo Stadium ee magaalada Kismaayo, halkaasi oo ay ku daafurayeen koob markaasi maamulka Jubbaland uu soo qaban qaabiyay. waxaase la sheegay in gaarigan loo qorsheeyay in qaraxa marka lagu xiro uu gaaro halka ciyaartu ay ka dhaceysay lagu beegsado madaxda dowlad goboleedka Jubbaland ee halkaasi ku sugnayd, balse qaraxa ayaa qarxay markii baawurkaas uu isku dayay in uu dhaqaaqo inkastoo uusan gaarin halkii bartilmaameedku ahaa. sidaasi waxaa inala wadaagay ilo xog ogaal ah oo ku sugan magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland. ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland oo warbaahinta la hadlay xalayta waxay sheegeen in howlgalkaas uu ahaa howlgal qorsheysan oo la doonayay in lagu dhibaateeyo madaxda dowlad goboleedka Jubbaland, sida uu shaaciyay afhayeenka ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland, kaasi oo si maldahan u sheegay in waxyeeladaas la doonayay in la gaarsiiyo madaxda sare ee dowlad goboleedka Jubbaland oo iyagu shalay daafurayay koob lagu qabanayay garoonka Wamo la yiraahdo ee ku yaala magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland. dhinaca kale, madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadashay weerarkaas Kismaayo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa tacsi u diray qoysaska, qaraabada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda ciyaaraha geerida dhalinyaradii ciyaartoyda ahayd ee ku shahiiday qaraxii argagixisanimo ee ka dhacay magaalada Kismaayo. madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in falkaas arxan darrada ah uu ka marakacayo sida ay argagixisada cadow ugu yihiin nolosha dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan horumarka dalkeena. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. qaraxan argagixisanimo ee ka dhacay magaalada Kismaayo waxa uu muujinayaa yoolka cadowga dadka Soomaaliyeed oo salka ku haya gumaadka haldoorkeena, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. madaxweynaha ayaa alla uga baryay dhalinyaradii ku geeriyootay qaraxan bahalnimada ah inuu hooygooda ka yeelo Jannatul Firdawsa. dhalinyarada kale ee ay dhaawacyadu ka soo gaareenna in eebba uu boogadhayo. sidoo kale sidaas si la mid ah ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Maxamed Xuseen Roble ayaa ka tacsiyadeeyay weerarkaas ay ku dhinteen dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwaas oo ciyaartoy ahaa isla markaana doonayay inay ka qayb galaan ciyaaro ka furmayay magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland. waxa uuna sheegay ra'iisul wasaaruhu in arrintaasi si aad ah uu uga xun yahay. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad wali daawanaysaan imikana. ra'iisul wasaare Roble ayaa si weyn uga carooday tallaabadii uu taliyaha NISA xil kale ugu magacaabay Cabdullaahi Kulane oo dhowaan laga qaaday shaqadii uu ka hayay sirdoonka NISA. wararka aynu helayna ayaa sheegaya in cilaaqaadka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Farmaajo aysan isku fikir ka ahayn tallaabada uu qaaday taliyaha NISA. ila wareedyo aan helnay ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu ka dambeeyay in xil kale loo magacaabo taliya Kulane, taas oo ka careysiisay ra'iisul wasaare Roble. sida ay cadeynayaan macluumaadyada, Fahad ayaa Cabdullaahi Aadan Kulane u magacaabay kaaliyaha arrimaha siyaasadda iyo amniga, halka booskiisa madaxa shaqaalaha loo xushay Cabbaas Yacquub. Cabbaas oo ka mid ahaa hoggaanka sare ee hay'adda haddana noqonaya agaasimo ku-xigeenka hay'adda, ayaa si gaar ah waxa uu madax ka ahaa qaybta maamulka, maaliyadda iyo weliba sidoo kale tiknoolajiyadda. sidoo kale Cabdiwahaab Sheekh Cali oo Roble uu ka qaaday jagada taliyaha sirdoonka garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa sida ay xoguhu xusayaan waxaa loo dallacsiiyay madaxa qorsheynta iyo tiknoolajiyadda. qaybaha dambe ayaynu isla soo gaarnay. ugu dambeyntii, odayaasha beelaha ee Koonfur Galbeed ayaa ku hanjabay in ay joojin doonaan doorashada haddii aan la sii dayn wadaad ku xiran dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur. odayaashan ayaa waxa ay soo saareen digniino culus, waxa ayna shuruud ka dhigeen in Koonfur Galbeed aan lagu qaban karin doorasho ilaa inta laga sii daynayo Mukhtaar Roobow. waxa ay sheegeen in la sii daayo Mukhtaar Roobow haddii la rabo in doorasho ay dalka ka dhacdo, iyaga oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u saaray guddi xaqiiqo raadin iyo dib u heshiisiin ah oo deegaanada Koonfur Galbeed markaasi matala, kuwaasi oo sida ay sheegeen
ka marqaati kici doona xaaladda adag ee ka jirta maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiyo madaxweyne cabdicasiis maxamed laftagareen. sidoo kale odayaashan ayaa ra-iisul wasaare Roble waxay ka codsadeen in guddi farsamo loo diro arrimaha ka jira koonfur galbeed oo dib u heshiisiin degdeg ah la qabto iyaga oo ku bogaadiyay in dagaal aan la huri doonin haddii ficilada madaxweyne farmaajo iyo laftagareen ay kasii socdaan deegaanada maamulka koonfur galbeed. mukhtaar robow abu mansuur ayaa u xiran dowladda federaalka ah ee Soomaaliya tan iyo markii ay dhacday doorashadii maamulka koonfur galbeed uu ku soo baxay cabdicasiis laftagareen kadib markii mukhtaar robow oo al-shabaab ka soo goostay isla markaana isku soo dhiibay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu isku dayay inuu isu soo taago xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed isaga oo la qabtay markii doorashada ay dhici rabtay sidaasina ilaa iyo hadda uu ugu xiran yahay isla markaana uu gacanta ugu jiro hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war lamid ah intaynu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.